wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha Hirshabelle ayaa Jowhar ku qabatay munaasabad lagu xusay maalinta biyaha adduunka oo ku beegan 22 Maarso waxaana ka soo qayb galay qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Jowhar maamulka degmada kan gobolka Shabeellaha Dhexe iyo xubno ka tirsan labada gole ee Hirshabelle marti sharaftii munaasabada lagu casuumay ayaa siyaabo kala duwan waxay uga hadleen biilaan ka jirta qaar ka mid ah tuulooyinka iyo deegaanada hoos yimaada magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle ma jirays biyo la'aan waa nolol la'aan waxaan rabnaa inaan iskaashano shacab dawlo dhalinyaro biyaha mar waliba webigu go'aya webiga ku teedsanahay webiga biyihiisa aan cabnaa marka waxa loo baahan yahay sidii looga bixi lahaa ma aha inaan biyo u aroorno sanadkan kaliya aan ka fakarno waa inaan helnaa biyo sida ay ku wada heli lahaayeen mar kastaba saddexdii tuuli afartii tuuli haddii hal ceel loo qodanay ay noqon doonto mid laga wada faa'iidaysto hadduu ilaahay yiraahdo injoogyada ku shaqaysta hambamka fuusada la dhaxdhiga 40 mitir oo musqusha waxaan idin leeyahay waa la idin dabagelayaa waana la idin arki doonaa insha Allah taala gobolkan iyo Hirshabelle waxa u dhashay dad dhalinyaro aqoon u leh arintaas inay daba galaan biyo la'aanta jirta ee ka jirta Hirshabelle in loo qayliyo dadka ilaahay wax siiyay iyo hay'adaha kale caalamiga ah la gaarsiiyo farintan oo ah ummadda Hirshabelle ku nool inay maanta biyo la'aan ay u baaba'ayso waxaan kaloon rabaa inaan u xusuusiyo dawladda federaalka oo Hirshabelle madaxdeeda xusuusiyo webiga laftigiisa buuxsamay waxa ka buuxana biyo ma aha webigi waxa ka buuxa carro biyiba ma qaadaba sidaa daraadeed waa in loo helaa webigi waa in la qodaa webiga si uu biyo badan u qaado shacabka reer Hirshabelle oo wuxuu la daalaa dhacayaa wax la yiraahdo biyo la'aan waxa ka jira harraad aad u tiro badan waxa ka jira runtii matal halka hortayda waxa ka muuqda dumar ama gabdho qurqurux badan oo si fiican u soo labistay gabdhihii dhigooda ahay oo ama tuulooyinka ku noolaay ama ku noolaay baadiyahana uma soo labisa karaan umana qurxana sida ay u qurxan yihiin sababtoo tahay ma haystaan waxa ay kuwaan ay haystaan si taa looga gudbo waxa nala gudboon in aan ummadeena ka saarno biyo la'aanta iyo problemaha iyo rafaadka ay qabaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha Hirshabelle Cabdulliif Maxamuud Xaaji ayaa sheegay in si dhow ay ula socdaan biyo la'aanta ka jirta deegaanada hoos yimaada magaalada Jowhar intii aan joogno halkan aan ku magacaabanahay shaqo hufan biyo nadiif ah iyo si wada jira bulshada deegaanka aan madaxda u nahay inaan ula shaqeyno si cad oo ay ku jirto daahfurnaan ula shaqeyno dhanka kale wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha Hirshabelle Mudane Shucayb Cabdikariin ayaa shacabka reer Jowhar u balan qaaday in wasaaraddiisu ay wax ka qaban doonto baahiyaha biyo la'aaneed oo ay soo gudbiyeen shacabka ku nool magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle waxaynu maqalnaa ama aynu hadda inta ka dhageysanay odayaasha qaarkood iyo bahda ururada rayidka ugu horeysa waynka oo mikrofoonada la siiyay inay sheegeen in la qodo ceelal yar yar oo liita markii si jeestaan dhamaada ciladaha noocaas ah sida laga hortagay oo muhiimad gaar ah haddii bulshada ayagana dadka noocaas iska qaban dhigmeertada ee ku qaraabanay waxyaabaha noocaas ah maalul bulshada waxa u imaan doona ninka si liita u maleynaa inuu guri irdinta ugu qodo ceel u maleynaa ceel loo qoday ahna wax ugu liita ee loo qoday ee looga tagay ugu horeysa inay taa cudur ma taqaan xataa biyaha meesha lagu shubay ma garan karaysid ma xataa xisaabteeda ama muhiimadda gaarka uma taqaanin waxaan u baahnaa marka anagoo in kaga faa'iideysanayna codadkeena iyo hadallada maanta ka soo jeediseen inaan anagana ku darsano baaq dheer oo aynu kaga dalbanayno donaliska ee ugu horeyso wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha iyo donaliska iyo kuwa ku shaqada biyaha ee ka shaqeeya guud ahaan Hirshabelle in ay si degdega reer Hirshabelle ay biyo ugu soo gaaraan hadday noqon lahayd ceelal degdega loo qodo ka fiican ceelasha maanta la heli karaya xataa inta degmadii ama tuulooyinka ka koobanta deegaanka ama degmadiiba loo sameey karo ceelal aad u qoto dheer u fiican biyo heli karo ragaadi kara ee ummadda dambe ee jiilka dambe ku fakar doonaan in aydan loo qodo waxaan hadda maanta idin ballan qaadaynaa oo anaga kaga faa'iideysanayna maanta biyaha adduunka ay tahay inaanu hawshaas aan u guda galno
hadduu alle idmo waqtiyada ugu dhowna aynu ka jawaabi doono baahiyaha gaarka. waa markii ugu horeysay oo wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha ee dowlad goboleedka Hirshabelle ay soo agaasinto munaasabad lagu xusayo maalinta biyaha adduunka oo 22 Maarso ku beegan, iyadoona munaasabada maanta wasaaraddu ay ku qabatay Jowhar ay ku soo gabagabowday jawi aad u wanaagsan. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar, Wadani TV-ga Kalsan, magaalada Jowhar.